maanta iyo su-aal kale. Waa gabar 4 sano jirto, maskaxdan loo kori jecel badan in laga sameeyo, laakiin dagaal iyo qaniini wado. Okay, maxaa lagu sameeyaa ciyaalkan haddaa maskax loo celiiliyo xataa dagaalkii way wadaan. Okay, tib yaraa ku siina insha allah. walaashay ku mahadsantahay saad ii soo weydiisay. marka damba su-aal isoo weydiinaysa khayr alla ku siiyo sanadka ii soo sheegtay meesha joogtan wadanka joogtan igu soo dar waayo waxyaabo badan oo ku tilmaami karo oo wadamadaas ka heli kartaa jiro hadaan aqaan wadanka joogto. marka insha allah waa ku soo koobaa guud ahaan hadda ka hadlaya horta carruurta markay isku kawaalwaalayaan ama dagaal kugu sameynaa waxay rabaan inay ka xanaajiyaan. number 1 yaa laga xanaajinin. midda labaadna waxaa waaye in wax ii ka rabaan la siiyo, waxa u diidaysmaa wax ii ka rabaan loo yeelo. midda labaadna hadalkooda ha ka ogolaan ama waxyaabaha uu oynayso dagaal u sameynaysa ha ka ogolaanin. midda saddexaadna meel fariisi oo 4 sano waaye 4 daqiiqo u qabo waxaana ku dhahdaa meesha fariiso waxa sameysana wax fiican maaha ilkahana cunta lagu cunaa dadka lagu cuno. okay marka hadaa markii ugu horeysa ay tahay marka in ay sheeg meel fariisiso oo 4 daqiiqo saacad u qabatid oo la hadlin marka yeeli doonto soo carro doonta marka hal saac ku qaadaday rabto waa inay ka reeynin oo fariisisid meeshaas markay dhameysana waa kaas samaysid sheeg la heshiisid oo dhahisan ma fiicno. midda labaad waxaa gaadaa ilmaha qaar waxa ku dhacay marka wanaag sameeyna ma bala arko marka xumaan sameeyna okay hadii saasta marka waxa sameeysa marka wanaag sameeynayso oo sheeg ma sha Allah qadara tahay waxaana sameysay kana yeeshay ilmaha faham jeceliin sama si anaka jecelnahay marka insha Allah salaamu calaykum.